Filinku wuxuu ku bilaabanayaa wiilkan dhalinyarada ah oo la yiraahdo Jan. Wuxuu leeyahay goob yar oo uu ku dayactiro moobilada, laakiin lacagta uu ka helo halkaas aad bay u yar tahay, xitaa ma daboolayso kirada gurigiisa. Dhibkiisu ma aha kirada oo kaliya, balse waa walaashiisa ka yar ee Tonga oo u baahan lacag qaliin loogu sameeyo sababtoo ah wadnaheeda dalool ayaa ku yaala oo marba marka ka sii dambaysa wuu sii daciifayaa. Mas'uuliyadda daryeelka walaashiisa Jan ayay korka ka saaran tahay sababtoo ah aabihiisa wuxuu ka tegay hooyadooda sanado badan ka hor, halka hooyadiisna ay u geeriyootay cudurka kansarka dartiisa. Maalin maalmaha ka mid ah, Jan wuxuu la kulmay dhakhtar kaas oo u sheegaya in xaaladda Tonga ay sii xumaanayso maalinba maalinta ka dambaysa, isla markaana ay haysato ugu badnaan 2 sano haddii aan qaliin degdeg ah lagu samaynin. Qalinkaasi wuxuu ku kacayaa in ka badan 700 oo kun ee lacagta Chinese-ka ah, taas oo Jan ka yaabisay sababtoo ah ma garanayo halka uu lacagtaas ka heli doono. Habeenkaas isagoo walaashiisa si kalgacal leh u eegaya, Jan wuxuu ka helay wicitaan saaxiibkiis ugu yimid kaas oo ugu yeeraya warshadiisa si uu wax ugu tuso. Markuu halkaas uu tago, saaxiibkiisa wuxuu qaaday maro weyn oo uu ku qarinayay kayd ka kooban 100 kun oo moobil ah. Wuxuu u sharxay in moobiladani loo waday Talyaaniga, balse la diiday markii tayadooda la baaray. Mulkiilihii shirkadda ayaa xabsiga ku jira ilaa hadda, mana bixinin kirada bakhaarka muddo 2 sano ah. Sidaas darteed moobiladani waxay noqdeen kuwo dayacan. Saaxiibkiisa wuxuu Jan ku yiri, waxaan kugu siinayaa dhammaan moobiladan 100 kun ee lacagta Chinese-ka, waad hagaajin kartaa oo dib ayaad u iibin kartaa. Jan wuu ka fikiray arrinkaas, balse lacag ku filan ma hayo. Sidaas darteed wuxuu iibsaday hal moobil oo kaliya. Habeenkaas oo dhan wuxuu ka shaqaynayay isagoo si taxadar leh u hagaajinaya, wuxuuna ku guuleystay inuu subaxdii uu shido taleefankii. Subaxdii xigtay, Jan wuxuu aaday bangiga wuxuuna qaatay lacag amaah si uu ugu iibsado dhammaan moobiladii saaxiibkiisa uu hayay. Markaas kadib wuxuu u safray suuqa elektaroonikada ee Shiinaha, halkaas oo uu heshiis kula galay nin iibin jiray moobilada celiska. Markuu xisaabiyo faa'iidada, Jan wuu yaabay sababtoo ah faa'iidadu waxay gaaraysay ku dhawaad 1 milyan oo lacagta Chinese-ka ah, taas oo ka badan lacagta qaliinka walaashiisa loogu talagalay. Jan aad buu u farxay, wuxuuna si kalgacal leh ugu qaaday walaashiisa dhinaca iyo dugsiga, isagoo dareemaya in dhibaatooyinkiisii oo dhan ay dhammaadeen. Laakiin noloshu had iyo jeer lama saadaalin karo. Dhib kale ayaa soo baxay 2 toddobaad kadib markii dowladda Shiinaha ay mamnuucday iibinta moobilada celiska ah sababtoo ah wasakhda elektaroonikada ayaa sii kordhaysay. Jan wuu carooday, wuxuuna la hadlay ninkii uu la soo heshiiyey, laakiin ninkaas wuxuu ku yiri sharci waa sharci, cidna kama sarrayso sharciga. Jan aad buu u murugooday sababtoo ah hadda ma heli karo lacagtii walaashiisa uu ku daaweyn lahaa, waxaana lagu leeyahay dayn aad u fara badan. Markaas ayuu fikrad cusub maskaxdiisa ku soo dhacday. Wuxuu tagay shirkaddii samaysay moobiladaas, wuxuuna maamulaha u soo jeedinayaa heshiis cusub, waana inuu u iibiyo qaybaha moobilada qiimo aad u jaban si shirkaddu ay ugu isticmaasho dib u habaynta moobilada ay sii dhoofiyaan. Laakiin maamulaha ayaa ka diiday arrinkaas, isagoo u sheegay in kala furfuridda qaybaha moobilada ay keeni karto khaladaad dhinaca tayada ah. Jan wuxuu ku yiri, anigaa si ammaan ah u kala saari kara qaybaha taleefanka, tayadana lagama yaabo in ay hoos u dhacdo, balse maamulaha xiise uma hayo Jan hadalkiisa, wuxuuna si fudud ugu yiri, haye isoo dir qaybaha si baaritaan loogu sameeyo, markay timaado warbixinta tayadana iisoo sheeg. Jan wuxuu shaqeeyey dhowr maalmood oo aad u culus, wuxuuna si taxadar leh u kala saaray dhammaan qaybaha muhiimka ah, kadibna u diray baaritaanka dhinaca tayada ah. Nasiib wanaag, qaybaha oo dhan waa la ansixiyey, wuxuuna degdeg ula orday warbixintii dhinacaas iyo maamulaha si uu heshiis uga saxiixdo. Laakiin maamulaha wuxuu ku yiri, anigu kuma dhihin waan iibsanayaa, waxaan kaliya kugu dhahay isoo ogeysii haddii baaritaanka aad ku guulaysato. Jan aad buu uga xumaaday maamulka hadalkiisa, balse ma uusan quusanin. Wuxuu go'aansaday inuu si toos ah ula kulmo mulkiilaha shirkadda ee Zack, wuxuuna ka codsaday 10 daqiiqo oo kaliya si uu ula hadlo. Nasiib darro, mulkiiluhu wuu diiday inuu waqti siiyo, wuxuuna ku yiri waqti ma hayo, waxaan raaci rabaa tareen 30 daqiiqo gudahooda. Jan si degdeg ah ayuu u iibsaday tigidh isla tareenkaas ah, wuxuuna ku orday wadooyinka ciriiriga ah ee magaalada isagoo mooto wata. Nasiib darro, wuxuu galay shil, laakiin si geesinimo leh ayuu u istaagay, balse mar kale mootadii ayaa u kici weysay, wuxuuna go'aansaday inuu lugeeyo. Ugu dambeyntii wuxuu gaaray tareenka daqiiqadii ugu dambeysay, wuxuuna u tagay kursigii mulkiilaha isagoo leh, hadda waxaan haystaa 10 daqiiqo. Sax. Jan wuxuu u sharxay dhammaan qorshihiisa, balse mulkiiluhu wuxuu ku yiri, waxba ma qaban kartid, qaybaha taleefankana ma kala saari kartid adigoo aan waxba jabinin. Kadib dadaal badan oo Jan uu sameeyey, mulkiilaha shirkadda wuxuu ugu dambeyn ogolaaday inuu ka iibsado qaybaha moobilada, laakiin kaliya haddii ay maraan baaritaanka saxda ah. Haddii ay baaritaankaas ku guuldaraystaan, Jan ma heli doono wax lacag ah. Intaas waxaa sii dheer, mulkiiluhu ma bixin doono wax caawimaad ah ama shaqaale isaga caawinaya. Jan waa inuu wax walba keligiisa u maareeyaa. Markuu tareenka uu ka soo dego, Jan wuxuu isweydiinayaa sida uu isaga keligiisa u kala furfuri karo 100 kun oo taleefan ah. Habeenkaas, Jan wuxuu walaashiisa ka soo qaaday guriga saaxiibkiisa, isagoo guriga u wada. Intuu jidka ku jiro, Tonga waxay aragtay dhaawacyada dhabarka walaalkeeda kaga yaala, ilinta waxay ka soo boorsameen indhiheeda markii ay ogaato shil inuu galay. Iyadoo ooyeysa, waxay ku tiri, walaal, waxaad tahay qofka keliya ee aan dunida ka haysto, markaa si tartiib ah u wad mootada. Jan wuxuu u ballan qaaday inuu si tartiib ah u wadi doono marka xigta, kadibna Tonga waxay daryeeshay dhaawacyadiisa markay guriga yimaadeen. Kadib Jan wuxuu la hadlay deriskiisa Zio, wuxuuna ugu sheekaynayaa qorshihiisa weyn ee warshada moobilada. Wuxuu ka codsaday Zio inuu si party time ah ula socdo shaqada. Zio wuxuu ugu digay in qorshuhu ay qatar badan ka imaan karto, balse Jan wuxuu u sheegay in wax uu lumin karo waan walaashiisa iyadoon taas jirin ma awoodi doono inuu lacagta qaliinka uu soo helo. Zio ayaa ugu dambeyn ogolaaday
ka qaybgalka qorshahaas. Subaxdii xigtay Jan wuxuu iibiyey dukaankiisa iyo mootadiisii si uu u kiraysto meel uu ku dhiso warshada kuna kaydiyo moobiladii faraha badnaa. Jan iyo Zio waxay nadiifiyeen goobta, waxayna hagaajiyeen alaabta lagama maarmaanka ah, waxayna shirkadda ugu magac dareen Nice View. Si loo badbaadiyo lacagaha badan, Jan wuxuu shaqaalaysiiyey qaar ka mid ah dadka ugu liita si aysan ugu bixin mushahar fara badan. Shaqaalaha ugu horeeya waxay ahayd waa hooyo keligeed ah oo maqalkii uu ka lumay shaqo hore ay ka shaqayn jirtay awgeed. Hadda waxay u shaqaysaa sidii adeeg bixiye ah, laakiin qaladaadkeeda ayaa badan. Inkasta oo ay dhibaato maqalka ah leedahay, waxay leedahay aqoon farsamo oo cajiib ah. Sidaas darteed Jan wuxuu si farxad leh u shaqo geliyey hooyadii. Shaqaalaha xiga waa nin cajiib ah, xayawaan badan leh. Shaqo hore ayuu ka soo tegay. Jan wuxuu u soo bandhigay shaqadiisa, ninkuna wuu la aqbalay. Kadibna Jan wuxuu shaqaalaysiiyey 2 wiil oo ciyaartoy ah, kombiyuutarkana aad u jecel, wuxuuna u tababaray shaqaalaha si aysan u khaldin tayada taleefanka. Markuu sheekadiisa uu maqlo ninkii uu shaqaalaysiiyey ayaa soo istaagay. Wuxuu Jan u sheegay inuu garabkiisa taagan yahay. Shaqaaluhu waxay bilaabeen shaqadooda, laakiin Jan lacag ku filan uma hayo mushaarka shaqaalihiisa. Sidaas darteed wuxuu ka shaqeeyey shaqo daaqad nadiifin ah oo saaxiibkiisa uu ka caawiyey. Maalin walba daaqada ayuu nadiifiyaa, habeenkii wuxuu ku mashquulaa kala furfuridda moobilada. Jan wuxuu shaqeeyaa 20 saacadood maalintii, wuxuuna seexdaa keliya 4 saacadood. Ujeedadiisu waa hal shay oo keliya, waana walaashiisa inay u sii noolaato. Maalin maalmaha ka mid ah, banaanka warshada, koox tuugo ah ayaa dhibaya Wan si ay uga baxdo dacwadii ay ka gudbisay shaqadeedii hore. Balse haweenaydii way ka diiday arrinkii. Ninkii ayaana wejiga si daran ugu garaacay. Qalabka maqalka ee u xirnaana wuu burburay. Waan hadiyad uu wiilkeeda uu siiyey. Jan wuu carooday, wuuna orday, wuxuuna ninka si xoog leh u garaacay si uu haweenayda u badbaadiyo. Saaxiibadiisa ayaa isku dayaya inay ka celiyaan, laakiin Jan ayaa si fudud u garaacay. Dhammaan tuugadii Jan wuxuu Wan ku yiri, ha welwelin, anigaa ku hagaajin doona qalabkaaga maqalka. Maalmo kadib, shaqaale ka mid ah shaqaalihiisa ayaa guursaday. Jan wuxuu ku farxay qof isaga u shaqeega inuu noloshiisa uu horumariyey. Zio wuxuu weydiiyey qorshaha noloshiisa, balse Jan wuxuu ku yiri, waxaan rabaa inaan arko walaashay oo kortay. Laakiin dhibaatooyinku weli ma aysan dhammaanin. Markuu guriga uu ku laabto, wuxuuna arkay warqad ka timid kiraystaha oo u sheegaysa inuu bixiyo kiradiisii 4 bilood si uu albaabka ugu furo. Jan wuxuu ku dayay inuu furo, laakiin kiraystuhu wuxuu bedelay qufulka. Wuxuuna isku dayay inuu telefoon oo ku qanciyo, laakiin wuu diiday inuu dhagaysto hadalkiisa. Jan ma garanayo meesha uu aadi doono, wuxuuna walaashiisa u qaaday guriga Zio habeenkaas. Wuxuu ku xanaaqay saaxiibkiisa oo moobilada uu ka iibiyey, sababtoo ah saaxiibkaas wuxuu ku leeyahay 2,000 oo lacagta Chinese-ka ah oo uusan bixinin bilihii la soo dhaafay. Janna wuxuu lacagtii ka soo qaatay gurigiisa. Subaxdii xigtay, Jan iyo walaashiisa waxay ku nasteen warshada maadaama uusan doonayn inuu culays uu saaro saaxiibkiisa. Wuuna is-eebsaday oo ma awoodi karo sariir fiican in walaashiisa uu seexiyo. Sidaas darteed wuxuu go'aansaday inuu u shaqeeyo si adag, habeenkiina seexasho yar uu qaato. Habeen ayaa walaashiisa waxay la soo kacday sawaxan dibadda ka yimid. Jan wuxuu u baxay si uu u hubiyo, wuxuuna arkay 2 tuugo oo moobiladiisa ka xadaaya kaydka taleefanadiisa. Markii uu arko, tuugadii way ordeen. Jan wuxuu isku dayay inuu alaabtiisa uu soo ceshto, wuxuuna la dagaalamay 2 tuugada ahayd. Natiijada waxay noqotay Jan iyo mid ka mid ah tuugada oo dhulka ku dhacay, farahiisina dhaawac ayaa soo gaaray. Darawalkii baabuurkana waa uu baxsaday, laakiin Jan wuxuu la kulmay tuug kale, wuxuuna ka dalbanayaa moobiladiisa. Walaashiisa ayaa goobta timid, aragtida dhaawaca walaalkeedna waxay ku sii xanuunsatay. Booliiskuna waxay soo sheegeen in tuugada la qabtay oo moobilada oo dhan dib loo helay. Markii uu shaqada nadiifinta daaqada uu iska wato, Jan biyo ayuu daadiyey sababtoo ah farahiis waa ay dhaawacan yihiin, taasoo keentay in maamuluhu uu ku amro inuu gacmaha ka qaado. Wuxuuna kula dul dhacay xanaaq iyo qayl daran. Inkasta oo uu baryay, haddana shaqada ayaa laga eriyey. Wuxuu helay keliya mushaar 3 maalmood ah. Hadda Jan ma garanayo sida uu u bixin doono kirada warshada iyo mushaarka shaqaalaha iyo lacagta qaliinka walaashiisa. Kiraystuhu wuxuu siinayaa 3 maalmood si uu u bixiyo kirada lagu leeyahay. Ugu dambeyn, Jan wuxuu istaajiyey gaariga mulkiilaha si aanan la filaynin, isagoo ka dalbanaya lacag horumaris ah. Mulkiiluhu wuu ka diiday, wuxuuna Jan uu ka eriyey gaariga. Jan wuxuu habeenka uu la joogay walaashiisa guriga Zio, iyadoo roob xooggan uu magaalada ka da'ayo. Maalintii xigtay, Jan markuu xafiiskiisa uu soo socdo, wuu naxay markii uu arkay waxa meesha ka dhacay. Kiraystuhu si xun ayuu u soo tuuray dhammaan alaabtii Jan uu lahaa, wuxuuna meesha ka kiriyey qof kale. Jan wuu niyad jabay, wuxuuna fadhiistay jidka agtiisa, mana hayo fikir ama hami uu ku sii shaqeeyo. Wuxuu si degan u eegay naftiisa waxa ku dhacaya. Markaas dhammaan shaqaalihiisa ayaa yimid si ay ugu shaqeeyaan, laakiin Jan wuu ka cudur daaranayaa, wuxuuna u sheegayaa in warshadu ay xiran tahay oo uusan haysan lacag uu mushaarka uu ku bixiyo. Layaab ayuu dareemay oo shaqaaluhu waxay u sheegaan iyagoo leh, hadda waxaan nahay koox, manihiin shaqaale oo keliya. Mushaarka waxaadna siin kartaa markaad hesho, sababtoo ah waan fahamsanahay sida aad u dadaalayso. Waxaan ku faraxsanahay inaad rumaysatay naftaada oo shaqo aadna siisay markii ugu horeysay. Waxaan u shaqayn doonaa si adag si aan ugu leysano dhammaanteena. Arrintani waxay dhiirigelisay Jan. Weliba aad iyo aad shaqaaluhu waxay moobilada ku rareen gaari, waxayna u wateen guryahooda si ay u bilaabaan dib u naqshadeenta. Kadib waqti badan oo dadaal joogto ah, dhammaan moobilada waa la kala furfuray. Janna wuxuu qaybaha u kala diray baaritaanka dhinaca tayada. Inkastoo Jan weli uu ka cabsi qabaa haddii qaybaha tayada laga soo diido, isaga iyo shaqaalihiisu waxay sugayeen natiijada baaritaanka iyadoo murugo iyo walaac ku jiro. Maalmo kadib waxaa loogu wacay xafiiska maamulka shirkadda. Zack wuxuu ugu hambalyeynayaa Jan inuu amaradii waqtigooda uu ku dhamaystiray, wuxuuna u sheegay in badankooda qaybaha Jan uu soo diray ay ka gudbeen baaritaanka tayada. Farxad ayay la
isla dhaceen dhammaan, Janna ilinta ayuu ceshan waayey. Laakiin sheekadu halkaas kuma dhammaanin. Zack aad buu ugu riyaaqay dadaalka Jan, wuxuuna u soo bandhigay heshiis 5 milyan ah oo uu ku shaqeeyo 2 sano ee soo socota. Jan wuu ka xishooday lacagtaas faraha badan, wuxuuna weydiiyey haddii uu heli karo lacag horumaris ah. Zackna wuu qoslay oo wuu ka ogolaaday. Kooxdu waxay isku dayayeen inay dareenkooda xakameeyaan markay galeen wiishka, laakiin markay gudaha gaaraan waxay u qayliyeen farxad darteeda. Ugu dambeyntii Jan wuxuu awooday inuu walaashiisa uu daaweeyo, riyadaasna way urmowday. Sheekadu markaas waxay u gudubtay 6 sano kadib. Shirkadda Jan ee Nice View waxay gaartay meel heer sare ah. Janna wuxuu noqday milyaneer. Maanta la joogana Jan waxaa lagu arayaa masraxa isagoo soo bandhigaya badeecad cusub, iyadoo dhammaan shaqaalihiisii hore ay garabkiisa taagan yihiin, kuwaas oo sidoo kale noqday kuwa hodan ah sida Jan oo kale oo ay ka qayb galayaan munaasabadda ganacsigooda. Halkaas ayuuna filimku ku dhammaaday.